bishii November haddaba sanadkii 1949 ayaa golihii guud ee Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa muddo 10 sanadood u xil saaray Talyaanigu inuu xukumo koonfurta Soomaaliya 1948 ayaa Ingiriisku isna go'aan ku gaaray in dhulka Soomaalida ee maanta ka tirsan Ethiopia uu ku wareejiyo sidii ay dhigeen heshiisyadii labada dhinac dhexmaray sanadihii 1942 iyo 1944 go'aankaasi oo jigjiga laga dhawaaqay waxa ka dhashay rabshadahaasi oo ay ku dhinteen dad tiradooda ay gaadhiso ilaa 25 qof oo Soomaaliya hase yeeshee 23 bishii September sanadkii 1948 ayuu Ingiriisku Ethiopia ku wareejiyay dhulkaasi 29 November 1954 ayaa Ingiriisku heshiis cusub uu la galay Ethiopia oo kaga baxay dhulka la oran jiray Hawd iyo Reservoir goorma ayaa haddaba Ingiriisku u sheegay dadka Soomaalida ah inuu bixiyay Hawd iyo Reservoir ama dadka Soomaalida ay ogaadeen waa kan Umar Cabdi sanadku markuu ahaa 1954 xisbiga kaliya siyaasiga markaa jira wuxuu ahaa SNL oo markii uu horeysay lagu bilaabay SNS Somali National Society markii dambena isu bedelay Somali National League sheekh waa xarunta tacliinta ee markaa lagu barbaarinayay madaxdii maalintaasi berrito la oran karay waxaanu markaa dawladdii Ingiriiska xukumaysa weydiisanay inaanu soo barano dalkayaga that means Somaliland waanu naqaane Hawd and Reserved Area ayaanu doonayna inaanu soo baranaan ku nidhi ee hanaloo diyaariyo baabuuro iyo sidii aan u tegi lahayn waayahay baa layidhi markaa dabato meelihii Reserved Area markaa kamid ahaa ku toosnaa Burco iyo kuwii Hargeysa ku toosnaa iyo kuwii Booramo ku toosnaa ayaan soo wada maray walwaal wardheer qarbidahare dhagax buur markaan soo dhamaysanay ayaanu dib u soo noqonay milmil awaare waxaanu soo noqonay Hargeysa dawladdii markaa Somaliland xukumaysa waxay tiri report soo qora waanu soo qoray report kolka hore waxaanu ka warramaynay uun maxaan ku dhahdaa meelihii aan tagnay iyo si naloo soo dhaweeyay waxyaalo caynkaasa laakiin saddex su'aalood ayaanu ku khatinay waxaanu nidhi maxay dawladdu iskuulo uga samayn weyday meelihii aan soo maray inta ay dhowr intay ka soo kaxeeyaan dhagax buur iyo awaare iyo meelahaas ayaanba sheekh amba booramo u keenayaan maxay iskuulo halkaa uga samayn weyday su-aasha labaad waxay ahayd waxaanu aragnay saraakiil iyo askar Ethiopia ah maxay meesha ka qabanayeen ilaa waa dalkayaga su-aasha saddexaad waxay ahayd macnaha reserved area waa maxay Hawd garanay oo Hawd marka Hargeysa la joogo macnahu waa koonfurta Hargeysa laakiin reserved area maxay tahay maxay reserved u tahay nimankii markii ay dawladdu governorkii isticmaalka ahaa ee dawladda mustacmarka ahaa yani wakiilka ahaa markuu warqadii loo geeyay markiiba la dhamay la xidhiidheen waxay yidhaahdeen nimankii macallimiinta ahaa waxay soo mareen reserved area dabeet waxayna weydiiyeen why macnuhu waa maxay reserved area maxay reserved u tahay su-aalihii aan weydiinay oo dhan bay u sheegeen markiiba dawladda Ingiriisku way soo jawaabtay waxay tiri u sheega waqtigii baa la gaadhay ay waajib noqotay in loo sheego heshiis sir ah oo inaga dhaxeeyay haddaan Ingiriis nahay iyo dawladda Ethiopia oo la kala saxeexday 1944 taasoo tixraacaysay heshiis kale oo 1897 la kala saxeexday markii xuduudda Afrika la sameeyay 6 bilood ayay arrintii qaadatay intii yani ay isu diyaarinayeen inta isay noogu sheegaan maalintii dambe ayaa barastaabka naftiisu ku dhawaaqay 28 February 1955 February 55 ayaa lagu dhawaaqo la yiri dhulka la yiraahdo Hawd iyo Reserved Area malihidin Ethiopia ayaanu ku wareejinay intaas markay dhacday magaalo kasta waxa laga sameeyay mudaharaad ninkii hadlaabana uu ku halqabtay wuxuu yiri Ingiriisku khiyaamay waxa dhacday dadkii Soomaaliyeed shacbigii inuu kacay markaas waxa la diyaariyay wafti la yiri lana loo diro
waxa ay kala ahaayeen suldaan cabdiraxmaan suldaan diiriye allah yarxamo, suldaan cabdillahi suldaan diiriye allah yarxamo, suldaan biixi foley raximahullah, michael mariano, cabdiraxmaan cali dubde, ilaahay u naxariisto, ayaa lana loo diray. sidii aan horeba u sheegnay 29 bishii November sanadkii 1954 ayaa Ingiriisku saxiixay heshiis cusub oo la galay Ethiopia oo uu kaga soo baxay hawd iyo reserve area dhulkii la oran jiray. mudaharaadyo ballaaran ayaa ka dhacay Somaliland oo lagu diidan yahay dhulka Ingiriisku uu wareejiyay, waxaana markiiba la qaban qaabiyay wufuud in loo diro London iyo New York. abril sanadku markuu ahaa 1956 ayaa wafdi ka socda guddiga baarlamaanka Ingiriiska ugu qaabilsan xiriirka dibaddu ay tageen Ethiopia si ay uga